aanu ka warbixinaynaa xanuun ka dilaacay deegaanka Saxdheer xanuunkaas oo ah shuban iyo xumad iyo qufac iswata oo ilmaha u badan caruurta siiba caruurta 10 sano ka yar xanuunkaasi waa shuban iyo xumad iyo qufac iswata dad aad u tiro badan buu soo ritay ilaa tuulada ilaa baadiyaha ilaa miyiga ilaa MCH waa buuxa meel kasta dadku waa waran yihiin hadeerna waa labadii buura waxaan gacanta soo galay dad kor u dhaafay ilaa 70 qof oo isku jira rag iyo dumarba iyadoo aan loo tagin miyiga iyo baadiyihii dadku waran yihiin laga soo qaadayo saacada ka dambaysa dadku waa iska soo daba dhacayaan marka cid kasto oo wax naga caawin karta wasaaradda caafimaadka dawladaha kala duwan haday noqoto Puntland haday noqoto Somaliland haday noqoto Ethiopia waxaan ka codsanaynaa cid kasto oo caawin karta daawo inay naga soo caawiyaan daawo gurmad degdeg ah u baahanahay guud ahaan daawadii MCH ka taalay tiimam waxay ka shaqeynayaan baadiyihii baan u dirnay tiim waxay ka shaqeynayaan xaruntii guud ee MCH ka daawadu waa gabaabsi cid kasto wax naga caawin karta daawada naga caawin karta oo caafimaadka qusaysa ama shaqo ku leh xanuunkan waxa u dhintay tirada hadda qof ilaa 2 qof oo dhintay qof wuxuu ku dhintay magaalada gudaheeda qofna wuxuu ku dhintay baadiyaha u dhow siyar baan dhiibanaynaa haddaan nahay baada MCH ka hadda meesha joogta dadka iyo way kala badan yihiin MCH oo ummadda xanuunsanaysa maanta aad u badan tahay waana ummad aad u fara badan inta maanta meesha jiifta iyo inta miyiga kuugu sheegayo iyo inta guryaha aan ugu tagayno ilaahay baa soo koobi kara oo tiradooda garan kara anagu ma tirin karno adeegyada hoostooda iyo waqti aad arkisan saas dadku u waran yahay meherad meesha oo gudaheeda oo dhan way buuxdaa meel banaani malaha MCH kuna saas ugu gudayay waxaan rabnaa horta MCH ka xawladiisu wataa arinka labaad aan rabnaa ka codsanayna cid kasto maqlaysa arintaas waxa weeye meeshan waxay u baahan tahay waa ergo'an waxay ka fogtay magaalada marka waxay u baahan tahay hal ambalaas sidoo kale odayaasha waxgaradka iyo waayeelka deegaanka Saxdheer ayaa baaq u diray cid walba oo qusaysa arrinta caafimaadka in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka uu saameeyay xanuunkan ka dilaacay magaalada Saxdheer halkan ay kala hadlaynaa waa Saxdheer weeyaan waxaan xaalad emergency degdeg ah u direynaa oo aan ku wargelinaynaa caalamka wax allaale wixii wax nagala qaban karaya xaalad degdeg ah oo caafimaad darro ah oo soo wajahday deegaanka Saxdheer xaaladaas oo xoolihii iyo dadkiiba laba xanuun ay asiibeen halkan waa Saxdheer waa MCH Saxdheer waxa ka jirta xaalad aad iyo aad uga miisaan weyn marka la eego MCH Saxdheer xaaladda caafimaadka ayaa aad iyo aad u liidata miyiga iyo magaalada dadku waa xanuunsanaya dad aad iyo aad fara badan baa la sheegayaa baadiyaha ku xanuunsanaya iyo mid beledka ku xanuunsanaya labadaba anaguna tabar inta la eego runtii aan ku soo ururino ama aan ku daaweyno dadka noocaas ma hayno waxaan u sheegaynaa cid kasta oo bahda caafimaadka meel kasta ha ku noolaato meel kasta ha joogto inay arinta gurmad ka geysato wax qabad degdeg ah ka geysato dadka hadda wuxuu marayaa ilaa 70 ma ku dhadhooya baadiyaha dadka jifa marka la eego iyo dadka halka ilaa 12 ilaa 11 xanuunka waa ku jiray marka hadda ayuu dhimashada dadkaas bilaabay waxaana keenaysa dadkii danyar buu noqday xoolo ma haystaan maamullamahooda kuma tiirsana marka waxaa keenaysa dadka ayada hadda ma heli karaan waxay qofkii ku soo qaadaan awooday ku soo qaadaan ma helayaan magaalada ambalaas ma leh muddo dheer hadeer maamulada midaan loo hadlin meel aan ku dhawaaqin aan dhihin war ambalaas kaliya hana la siiyo deegaamadan dad badan baa ka shaqeeya oo baarlamaan ku jira oo wasiirada ku jira oo xildhibaanada ku jira deegaamadan hadda xanuunka ku